Shacabka ku nool dalka Kenya ayaa waxay intooda badani u hoggaansameen awaamiirtii iyo talooyinkii caafimaad ee ka soo baxay dowladda Kenya si looga hortago faafitaanka cudurka caabuqa ah ee coronavirus. Dhanka kale, waxyaabaha ay dadka sida gaarka ah u tixgelinayaan waxaa ka mid ah dhaqashada gacmaha oo sida lagu sheegay daraasad ay sameysay shirkadda Tifa ay boqolkiiba 76 ku howlan yihiin shacabka Kenyaanka ah. Sidoo kale waxaa jirtay su'aalo la weydiiyey 1,000 qof kadib waxaa soo baxday in dadka badankooda ay si joogto ah gacmaha ugu meertaan biyo iyo saabuun si ay faafitaanka cudurkaasi coronavirus uga badbaadaan. Si kastaba ha noqotee, cilmi baaristani lasoo daabacay maanta oo Arbaco ah ayaa dhanka kale lagu sheegay in boqolkiiba 18 shacabka ku nool dalka Kenya aysan weli u hoggaansamin tillaabooyinkii loogu talagalay ee ku habboonaa ka hortagga cudurka ee ay dhowaan dowladda Kenya soo saartay. Marka laga reebo fariimaha ku aadan gacmo dhaqashada, wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale ku talisay inaan gacmaha la isku salaamin, xabadkana la isgelinin, sidoo kalena aan la isdhunkanin. Qofka marka uu qufacayo ama hindhisoonaya ayaa laga doonayaa inuu adeegsado warqadaha tiishka ah ee jilicsan ama uu tago meel gooni u ah. Dadweynaha ayaa looga digay inay u safraan wadamada uu coronavirus saameeyay ama inay la macaamilaan qof uu cudurkaasi soo ritay. Shacabka ayaa lagula taliyay inaysan aad isugu dhowaanin oo qofba qofka kale u jirsado cabir dhan ilaa iyo 2 mitir, inkastoo daraasadda la sameeyay ay tilmaamayso inaan weli si buuxda loo dhaqan gelinin awaamiirtii ay soo saartay wasaaradda caafimaadka dalka Kenya. Dhanka kale, dadweynaha ku nool ismaamulka Nairobi ayay shirkadda daraasadda sameysay ee Tifa sheegtay inay yihiin kuwo aad u yaqaan astaamaha caabuqa coronavirus, halka boqolkiiba 77 qof dadkii Kenyaanka ah ee la wareystay waxay astaamaha coronavirus ku sheegeen qufaca, halka boqolkiiba 70 ay ku sheegeen qandho in ay qabanayso qofka markii uu ku dhaco caabuqa coronavirus. Sidoo kale, cilmi baarista ayaa sheegaysa inay jiraan astaamooyin aynan ka warqabin dadka la wareystay badankooda, waxaana ka mid ah astaamahaasi aysan shacabka sida gaarka ah ugu warqabin, sida madax xanuun iyo neefta oo qofka dhibta ama ku adkaata inuu helo hawada oksijiinta. Sidoo kale, waxaa la ogaaday in boqolkiiba 2 ay iska dhaadhiciyeen in qofka oo dhuunta xanuunto ay tahay astaamaha ugu waaweyn ee lagu garto caabuqa coronavirus. Ugu dambeyntii, daraasaddan ay sameysay shirkadda Tifa ayaa lagu sheegay qoraalkeeda in taariikh ahaan ay sameysay intii lagu guda jiray 15 ilaa iyo 21 bisha tani aanu ku guda jirno. Dhanka kale, shalay ayay ahayd markii dowladda ay sheegtay in tirada kiisaska la xaqiijiyay gudaha dalka Kenya ee la xiriirta caabuqa coronavirus ay gaareen kiisas dhan ilaa iyo 25 kiis. Sidoo kalena, wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka Kenya, Mr. Mutahi Kagwe, ayaa carabka ku adkeeyay in shacabka weli looga baahan yahay inay ka soo baxaan kaalinta kaga aadan xakameynta cudurkaasi sida daran u saameeyay bulshaweynta ku nool caalamka. Dhanka kale, wasiirka ayaa hadalkiisa ku daray inaan weli la dhammaystirin baaritaano lagu sameeyay 647 qof oo dheeraad ah, kuwaas oo xiriir wada yeesheen bukaanadii laga helay caabuqa coronavirus. Abdiraxmaan Atore, wararka 5 TV, Nairobi.